warbaahinta sharafta loo mahadsan yihiin waxaan iskugu kin yeedhnoon laba qodob oo kala ah inaan xisbi ahaan cambaarayno xadhiga maxamed baashe qoraa maxamed baashe oo si xaaraana lagu xidhay oo ah dadkii dee qalankiiyo maskaxdaba ugu soo halgamay carjuuqdheh oo xukuumadda xurmadaran ay durba bilowdeen dadkii aqoonyahanka xidhxidho marka waxaan leenahay xisbi ahaan aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa waxay sheegaysaa in kulmiye bulshadii dadkii waxgaradka ahaa uu leeyahay xumaantiiyo waxaan samaynayoo dhan yaa sheegina hana juuq odhanina marka aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa maxamed baashe waa nin caqiibo leh oo qarankan wax badan u soo taray waan ka xunnahay xadhiggiisa talabaad waxaan sheegaynaa wasiir caddaan iyo oo caado ka dhigtay caayid cabdiraxmaan ciro ayaan jecel lahay inuunan halkaasna kelmad ka idhaahdo waxaan odhan lahaa wasiir caddaani ma ahayn inuu maanta isagu hadlaba nin hadlaba ma ahayn because waxa weeye caddaani oo bulshada somalilan og tahay ninkii koowaad ee dalalka islaamka keenay ninkii qowmad luud lagu eedeynayey andros maraykanka ahaa marka waxaan leenahay adigoo dadka noocaasa qarankan barakaysan ee somalilan keenaya inaad maanta cabdiraxmaan ciro caydo dee malaa waxay tahay caalam su-aal in adigu isweydiisid waxaweeye 750 dal ee caalam islaami ayaa ninkaa laga mamnuucay adiguna waxaad u ogolaatay inay jamhuuriyadda barakaysan ee somalilan 40 milyan ku nool yihiin inaad ninkaa keentay andros kubar marka waxaan odhan lahaynuun xishood orodoo dadka ka xishoodoo isqari cabdiraxmaan ciro adigu kuma weydiinayo safaradu gelayo kormeeradu gelayo adigu kuma weydiinayay madaxtinimadana ilaahay baa haya ninkii uu ilaahay qorun baa madax noqonaya laakiin adigu shaambad ayaad ku tahay somalilan ceeb baa ku tahay adigoo shaqadaadu tahay waxyaalaha noocaasa inaad maanta nin cabdiraxmaan ciro oo kale ahoo qarankan sharaf iyo karaamo kale aad cadcaydido maalin walba lagu dhahdo qabo caddaaniyow waa mushkilo sida eyda marka waxaan odhan lahay inuu caddaani bulshada somalilan way ku baratay waxa tahayba waanaan ka xunnahay ka xisbi ahaan iyo ka qar ahaanba inaad noqotay ninkii koowaad ee keena qarankaa barakaysan ee somalilan andros kubar shaambad kugu taallo weeye aan weligeed kaa hadhayn aan weligeed intuu ifka la joogo aan kaa hadhayn jamhuuriyaddaasina ku wada og tahay waxaweeye andros kubar dadka maraykanka ah ee gaalada ah baa ka xanaaqaynay salaamaan adiguna dadkaa barakaysan ee somalilan ee muslimiinta ah sunniga ah baad u soo horseedaad tidhi kaalay marka adigoo noocaa ku shaqeeya inaad dadka la hadashidba ma ahaba asalaamu calaykum waraxmatullah